السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامج كيني وعيس يويقا كاسو عن تطبات كان كغاهد دونو دينعا سياسة صدح arrimood oo kala ah waa midda koowaad waxqabadka xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud waa qodobka labaad ciidanka nabad ilaalinta ee AMISOM saameyn intee leeg ayuu ku leeyahay waa qodobka saddexaad dhaqdhaqaaqii xagjirka al-shabaab oo wali sii muuqda sida aynu wada ogsoonahay waxa inoogu soo fuulay sanadka 2016 inay doorasho ka dhacdo guud ahaan Soomaaliya iyada oo ay dawladuna ku mashquulsan tahay nidaamka gobolaysiga xaaladda maanta dalku ku sugan yahay waa mid aan sal lahayn iyadoo ay jirto duruufo amni iyo mid cunaqabateyn dawladdu waxay ka gaabisay in ay maamulkeeda gaarsiiso gobolada iyo degmooyinka wadanka maanta waxqabadkii dawladdu wuxuu dhaafi waayay waxaan cambaareynaa qaraxii ka dhacay masaajidka waxaan cambaareynaa qaraxii ka dhacay hotel Makka Mukarrama miyaa arrimahaas la oran karin waxa uu sal ku leeyahay siyaasad barnaamijka shabaab iyo ogosna dadka ayaa lagu mashquulinaya waxa isweydiin mudan Soomaaliyeed ciidanka AMISOM ma qabanaya hawshii iyo ujeedadii ay u yimaadeen Soomaaliya ee ay shaqadoodu ahayd iyadoo ay jirto degmooyin fara badan oo wadanka oo go'doonsan waxaan tusaale u soo qaadan karaa degmada Buule Barde oo aad maanta cunaqabateyn saaran tahay iyadoo oo tan iyo markii laga saaray ururkii al-shabaab ilaa maanta ay admoodo inay cunaqabateyn saaran tahay ciidanka kaliya ee degmada joogana ay yihiin kuwii dadka ugu dhawaa ee ciidankii Djibouti kuwaasoo raashinkooda iyaga diyaarado loogu keeno laakiin bulshada meesha ku dhaqan iyaga raashinkooda iyo cuntadooda diyaarado looguma keeno dhib badan baa ka haysata waxaanay ku jiraan go'doon waxaa maanta wada ogsoonahay degmada Buule Barde in aanay deganeyn qabiil yar oo kaliya dadka deganna way iswada garanayaan waxa isweydiin mudan way sabab siyaasigaagu uu la aamusan yahay sabab aad xaqiina u doonan laadin sabab aad uga hadli laadin arrimahan socda iyo cunaqabateyntan aad ku jirtaan anigoo soo koobaya qodobka saddexaad ee ah ururka al-shabaab isla markaana ay dawladda federaalka Soomaaliya ula baxday ugus waxa isweydiin mudan ma yahay urur jira daacad ma laga yahay in lala dagaalamo oo wadanka laga nadiifiyo mise waxay dani ugu jirtaa cid gaara oo dana gaara wadata oo ka raali ah inay waxan wadanka ka sii socdaan barnaamijkeena caawa intaas ayuu nagaga egyahay su'aalaha ku jira barnaamijka commentigiina fadlan commentigiina kaga soo jawaaba waa anigoo ah wacays iyo farsamadii Maxamed Ganay G Studio